caradiyo dhulkiisiyo cidda lagu haleeyo codka shacabka qiime sharcigana ciseeyo yaysan cabasho ka iman dumarkiyo caruurtiyo curyaanada jajabaniyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal soo dhowaada kulanti wacan oo wanaagsan mar kale waa walaalkin qays insha allahu tacaala maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qisadii qeybta labaad gabadhii miskiinta aheed oo la khiyaameeyey ama la dulmiyey qeybta labaad insha allahu tacaala qaybta labaad haddii aan u gudagalo gabadhii miskiinta aheyd way ogolaatay inay ninka la sheekaysato way ogolaatay kadib xiriir waxaa dhexmaray ninka iyo iyada xiriir telefoon ayay ku wada hadlaayeen ninkii sidaasi ayuu ku shukaansanayay gabadhii wadanka la joogtana way u shukaaminaysay ayadana dhinaceeda ma yareysanin runtii waa la jilciyey gabadha alaaya xaal dhinaca kale ninkii ay la sheekeysanaysay oo telefoonka wayba ka heshay been iyo wuxuu isku dardaraba waxbuu ka dhaadhiciyey gabadhii wuu qanciyey gabadhii waxay go-aan ku gaartay inay isku diyaariso inay afrika ugu tagto oo ay soo mehersato kadib tigidyadeeda lacagta ku bixi laheyd baasaboorkeeda waxeeda ayay diyaarsatay waxay go-aansatay inay sii baxdo gabadhii way baxday afrika ayay aaday afrika ayay ugu tagtay ninkii waa loo meheriyey aroos ayaa loo sameeyey adduunka iyo lacagta waxaas oo dhan ku baxayso gabadhii ayaa bixinaysay hoolka meherka iyo arooska lagu qabanayo iyada ayaa bixisay dharka ninka iyo dharkeeda iyada ayaa bixisay wax walbo arooska ku baxay ugu yaraan ilaa 20,000 oo doolar iyada ayaa bixisay arrintii markay soo gabagabowday oo waxayda u dhammaadeen dib ayay u soo laabatay qurbaha ayay ku soo laabatay gabadhii kale oo qurbaha joogto oo kasii horeysana xaaladda way la socotay arooska iyo wax walba sawirka loo soo diro muuqaalka loo soo tuuro wax walba way la socotay intay ayada afrika joogtana ninka xiriir hoose ayay leeyihiin way isla xiriiraan markay ayada ka maqan tahay ama markuu suuqa soo aado ayuu la soo hadlaa gabadhii qurbaha ayay ku soo noqotay muddo kadib markay afrika ka soo laabatay gabadhii way xanuunsatay dakhtar ayay aaday baaritaan iyo waxbaa lagu sameeyey kadib waxaa lagu soo wargeliyey inay uur leedahay ayaa loo sheegay gabadhii runtii way naxday haddana waxay istiri alxamdulilah waa ilmo aabba leh kolley aabbihiisa ilaahay wuu u keenayaa waxa dhiba ma lahan ayay niyadda ku dhisatay inkastoo ayada ay diyaar u ahayn inay ilmo dhasho weliba waxay istiri ilmaha markay dhashtaan aabbahoodana kiiska wuu u fududaana ayay istiri gabadhii ma u sheegin ninka ama ninkii afrika joogay ama uur u leedahay uma sheegin inay uur leedahay laakiin xanuunkeeda wuu la socday gabadhii kale oo la joogtana uma sheegin howsheeda ayay sii wadatay waxay bilaawday inay u dacwooto ninka sawirada iyo muuqaalada arooska immigration inay keento oo sponsor u buuxiso arrimihiisa ama maaragtay dacwadiisa ayay gashay waxay dacwada socotaba uurkeedana uu cuslaanayo waxaa la gaaray xilli ee maaragtay loo ogolaado ninku inuu yimaado ilaahay wuu u fududeeyey muddo 6 bilood gudaheed ayaa loogu ogolaaday ama lagu keenay xilliga ee ninka loo ogolaanayo ama ogolaasho la siiyey inuu Mareykan soo aado gabadhan uurkeeda 6 bilood ayuu marayaa laakiin waa qof laga dareemeynin calooshiisa ama maaragtay inuu uur leeyahay laga dareemeynin intaasi ayadana waxay ku sii dartay inay qariso ama dhar waaweyn xirato oo ay cidna u sheegin kadib ninkii wuu soo baxay wuu imaaday gabadhii kalena way la socota xaaladda meeshay marayso inkasta oo gabadha aysan weydiinin si toos ah laakiin waxay kala socotaa xagga ninka maalintuu ninku imaanayo ayay u sheegtay gabadhan kale oo la dulmay ama afrika loo diray oo ninka keentay kadib waxay ku tiri tii kale oo ninkii qabi jiray waan israaceynaa waan isla soo qaadeynaa airportka waan isku raaceynaa ayay ku tiri waa la isku afgartay maalintii ninku imaanayo airportka la sii aadayo waxay tiri tan hore loo qabi jiray waxay tiri anigana gaarigaygan qaadanayaa adigana gaarigaaga qaado maadaama aad tiin 2 qof oo isqabto waxaa wanaagsan inaan aniga kaliya iska soo noqdo adinka soo sheekeysatay maaragtay inta soo socotiin haye waayahay ayaa la yiri 2 gaari ayaa la qaatay airportka ayaa la yimid
airportkii marka la yimid way salaameen, way soo dhoweeyeen, borsooyinkaa loo soo bixiyey. laba gaari ayaa taagan, midii la qabi jiray ama midii hore uu qabi jiray ayaa gaarigeeda iska gasha iyadoo la hadlin. tan kalena waxay isleedahay gaarigii hagu galaya, gaarigii u furtay oo borsooyinka inay geliso ayay isku dayday. kadib borsooyinkiisa intuu jiitay gaariga kale oo naagtii hore uu qabi jiray ku aruursaday. borsooyinka markuu halkaas ku aruursaday, gabadhii ayaa soo baxday, waxay ku tiri ninkan anuu i qabaa, waa ninkayga, walaalay shaqo yeelo ayay ku tiri. dagaal ayaa halkaasi ka dhacay. gabadhii miskiinta ahayd waxay ku hadashay ayay garan waysay. gabadhii ku qalqaalisay oo saaxiibtinimo ahaan ku qalqaalisay ninkan, sidaasi ayay ula dhaqantay. ninkii ay muddo intaas la eg ku rafaadaysay, qarash intaas la eg ku bixisay, asagana wuu ka tegey, naag kaleu ka raacay. gabadhii waxay ku noqotay arrin la yaab leh. laakiin sheekada waxaan idinka iloobay intay afrika joogtay ama intay nairobi joogtay. intay afrika joogtay ileen dadku waxbay sheegaane, waxunbaa dhegaheeda ku dhacay, inkastoo ayada aysan aaminin. arrintani markay dhacday waxaa isla markii hor imaaday ama sawir isla markii maskaxdeeda ku soo dhacay waxyaalaha looga sheekeen jiray markay joogtay nairobi ama markay joogtay afrika. way baxday, xaafadeeda iska aaday, waa la kala hoyday. gabadhii qaraabadeeda u sheegtay waxa ku dhacay, ninkii aan keenay oo lacag badan iga qaatay ayaa naag kala raacay, arrimahaasi ayaa igu dhacay ayay tiri. dad ay qaraabo yihiin ayaa isku day inay dagaalamaan oo buuqa kiciyaan. waxay tiri iska daaya, xiriirka way u jartay labadaba. muddo 3 bilood kadib way umushay. waxay dhashay mataamo, wiil iyo gabar ayay dhashay. kadib ayay soo wacday iyadoo hosbitaal joogto. waxay ku tiri mataamo ayaan dhalay, wiil iyo gabar, adiga ayaa iskale, saas la soco. wuu iswaalwaalay ani malihi iyo waxyaalo noocaasuu sheegay. kadib warqad ayaa loo soo diray, xaafadiisa warqad ayaa loogu soo diray. warqadda waxaa ku qoran inuu imaado hosbitaalkaasi oo DNA laga qaado. ilmihii mar hore ayaa DNA laga qaaday, asagana waa la ballamiyey, DNA ayaa laga qaaday. labada DNA waa iswaafaqeen, wuxuu noqday ilmaha qofka dhalay inuu yahay asaga. qaybta 3aad la socda yaa guulaysan doono khiyaanadaasi gabadhaasi miskiinta ah oo lacag laga dhacay oo ninkeedana maalin cad laga kaxaystay. yaa guulaysan doono? ma ayadaa guulaysan doonto? ma kuwii khiyaanaha guulaysan doono? jawaabteeda qaybta 3aad ayaad ku maqli doonteen insha allahu tacaala. aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkeena Qaysi Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. tan iyo kulantideena dambe walaalayaal, waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. عليكم يا السلام.